بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa barnaamij gaar ah oo aan idinka diyaarinay ururka samafalka ee daryeel ee fadhigiisu yahay dalkaasi Switzerland ururkan oo ay ku midoobeen dhalinyaro kala duwan oo Soomaaliyeed markay arkeen dhibka haysta dadka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan tamada kalena ay ku daawanayaan oo ugu darnaadaane wadamada dariska la ah shayga dhabta ah uuna yahay in uu xalku ku jiro Soomaalida dhexdeeda yaa waxay go'aansadeen in ay xalka ka qayb qaataan waxaana ururkan daryeel la aasaasay 22 bishii tobnaad ee 2009 ururkan daryeel ee horumarinta iyo nabadaynta Soomaaliya gaasi waxa gudoomiye loo doortay mudane Xasan Ismaaciil oo aadan taariikhdu markay ahayd 22 bishii tobnaad ee 2009 ururka hadafkiisa loo aasaasay ayaa waxa uu ahaa horumarinta iyo nabadaynta geyiga Soomaalida la dagaalanka gudniinka fircooniga ah wacyigelinta cudurka dilaaga ah ee HIV/AIDS-ka markii ugu horeysay ee ururka daryeel uu caawimo gaarsiiyo Soomaaliya waxay ahayd 2011 markaasi oo abaartii ugu xumayd muddo 6 sano ku dhifatay dalkaasi Soomaaliya markay taariikhdu ahayd 22 bishii 8 ee 2011 waxaana ay konton qoys u qaybiyeen raashin 4 maalmood ku filan waxaana ay u qaybiyeen geesiyadii Soomaaliyeed ee ku dhaawacmay dagaalkii 77 hoyna u ahaa isbitaalka weyn ee Martini maadaama ay indhaha adduunka ay ku mashquulsanaayeen abaarta ku absatay Soomaaliya geesiyaashii 77 waxay u noqotay fursad mar kale lagu soo xasuusto waxaana daryeel sharaf u ahayd in uu isla maalintaasi ku xigtay booqasho uu ku tagay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ahna maanta madaxweynaha ismaamul goboleedka Puntland ee dalkaasi Soomaaliya Cabdiwali Cali Gaas 28 bishii 7 ee 2012 waxay daryeel container sida qalabka caafimaad iyo dharay gaarsiisay isbitaalka ku yaala Dobley General Hospital containerkii labaad ee aan direena waxay nasiib u yeesheen inay gaarsiiyaan walaalihiin reer Awdal iyo Salal waxaana iga codsaday fannaankeena weyn ee reer Basal ahna saaxiibkay qaaliga ah Samatar Xasan Saamje waxa kale oo ay qayb weyn ka qaatay inay qalabkan gaarsiiyaan Awdal iyo Salal fannaanka weyn ee Soomaaliyeed Axmed Yaasiin Aadan Faarax oo kana mas'uul ahaa lacagtan safarka containerka ee reer Suruqiya Basal iska kaashadeen waxaana agabkaasi in ay helaan u suura galiyay walaalkood Petro Dulow oo u dhashay dalka Kosovo mar walbana garab taagnaa walaalahood dhaqaalaha ay ku fuliyaan ururkan daryeel wax noo suura galiyay gobolka Basal Welti Grib Monhan iyagoo suuq geynayay raashinka Soomaalida soo suura galisay Fartuun Cali Nuur iyo Deeq Xasan Cusmaan gudoomiyaha ururka daryeel mudane Xasan Ismaaciil oo aadan wuxuu ballan qaaday inuu caawin doono Soomaalidu meel walba oo ay joogaan isagoo fiirinayn gobolka iyo qabiilka ay ka soo jeedaan ugu dambeyntii waxaan documentary-gan aan ugu talagalnay ururka daryeel wax qabadkooda inaan idinku soo gudbino waxa fiiro gaar ah iyo mahadnaq gaar ah iska leh gobolka Basal ururka Welti Grab Mulham iyo ururka daryeel Petro Dulow iyo fannaanka weyn ee Saamje oo isagu ahaa shakhsiyaadkii ka qayb qaatay ururkan daryeel horumarinta uu soo gaarsiin lahaayeen gobolada Awdal iyo Salal wax qabadka ururka daryeel oo ah mid mudan in lagu daydo taariikhduna ay xusi doonto shakhsi kasta oo gargaarkaasi ka geystay la soo gaarsiiyay gobolada Awdal iyo Salal waxaana aanu idinku soo gudbinaynaa muuqaallo dadkii iyagu halkaasi alaabtaasi la soo gaarsiiyay oo ay ka mid yihiin mas'uuliyiinta heer gobol laamaha dawladda gobolka oo intooda badan ahaa kuwa aan xafiisyadoodu qalabyada kombiyuutarka iyo waxyaabaha la halmaana aanan haysan mar walba mahadnaq gaar ah iska leh shakhsiyaadkii iyagu ka qayb qaatay oo ay ururka daryeel ugu mudan yihiin meel walba oo ay joogaan
ururkaasi daryeel oo xaruntiisu tahay dalka Switzerland waxaana looga fadhiyaa sidii waxqabad ka badan ay u gaarsiin lahaayeen dhammaanba inta ay gobol ee ay Soomaalidu degto.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لي الدمانتي والمهتتين كسوق الدلياشة دمانتي دوليها قبل قاوضا صلاديتا علماء دينك أورك هاوينك والرضا وطنيها iyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Awdal iyo Selen gudoomiyaha waxbarashada gudoomiyaha sportiga dhammaan ka soo qaybgalayaasha waan islaamayna haddaan nahay ururka markaas sawad waxaan maanta halkan u nimidnay aan isugu yeernay inaan u qaybino agabka dhammaantiin aad arkaysiin qalabka xafiisyada kombiyuutarada printerada faylasha kabadhada iyo miisaska ayaan markaas u qaybi doonaa ururada markaas alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin barasaab ku-xigeenka gobolka Awdal maayar ku-xigeenka degmada Boorama taliyaha qaybta gobolka Awdal isu duwayaasha wasaaradaha gobolada Awdal iyo Selen maayarada magaalooyin degmooyinka gobolada Awdal iyo Selen culimada diinka salaadiinta iyo haweenka dhalinyarta iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxaan ku salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam maanta ay bishu tahay kowdii bishii labaad 2014 waxaan halkan ku qaybin doonaa agab ama tabarucaad ay noogu soo tabaruceen ururka daryeel ee dalka Switzerland agabkaas oo isugu jira saada ka aragtaan hareerihiina ka muuqata miisas printero kombiyuutaro iyo adaan ku leeyahay kabadhaba ka waxa insha Allah taala aanu qaybin doonaa dhammaan degmooyinka gobolada Awdal iyo Selen isu duwayaasha wasaaradaha ee gobolka Awdal oo iyo ururada bulshada intii ay ka gaadho sidaan hore soo sheegnay ururkan daryeel ee noo soo diray alaabta waa urur ka jira waddanka Switzerland waxaana xiriir wada leeyihiin ururkan sawad oo xaruntiisu tahay magaalada Boorama marka insha Allah deeqdan waxay u soo wakiisheen inay u qaybiyaan dhammaan degmooyinka gobolada Awdal iyo Selen kolba sida ay baahida u kala badan tahay in loo kala gaarsiiyo jaamac samatar ururkan sawda ay ku guddoonsiinayso qalabka xafiisyada ay ku guddoonsiinayso degmooyinka iyo ururada bulshada dadkiina ka soo qayb galay ugu horeeyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka gudoomiye ku-xigeenka degmada isuduwaha awqaafta ragga kale hay-adaha madaxda madax dhaqameedyada culimaa diinka dhalinyarada ururada haweenka dhammaan beed dadweynaha ka soo qayb galay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddii aan salaanta intaa ku dhaafo aad iyo aad bay sharaf noogu tahay inaan igala soo qayb galno xafladdan sababtoo ah waxaan aragnaa ururkan noo yeedhay sawda inuu dadaal xoog la muujiyey inuu ka qayb galo oo uu ummaddiisa haddii ay noqoto degmooyinka iyo haddii ay noqoto ururada bulshadaba inuu soo gaadhsiiyo kaalmo weliba kaalmo tii ugu fiicnayd ah oo aynu arkano qalabka halkaa maaragtay inaga soo jeeda oo run ahaantii ahaa qalabka ay xafiisyada u baahan yihin xafiisyadeena markaad geshto waxaa laga yaabaa qaar bay weli teebabka yaallaan teeb baa qaar wax lagu garaa marka ururkani haddii uu maanta soo gaadhsiiyey isagoo weliba uu ku soo caawiyey ururka daryeel ee isna Switzerland
labadaa ururee maanta soo gaadhsiiyey dadweynahooga agabkaa muhiimkaaba waxaanu leenahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa waxaan idin leenahay ilaahay ka soko xoog baan idinku mahadnaqanaa jasaakum allah khayr waxaanan idin rajaynaynaa inaad intaa ka sii badisiin oo maalinta dambe intaa in leegna haddii alla ka dhigo aad soo gaadhsiisiin ummaddoodii wax soo gaadhsiin haddaan aragno aad iyo aad ayaanu ugu faananaa sharaf bayna u tahay labada ururka Switzerland ka soo diray iyo ururka qaybinayaba inta badan waxa dhacda in la yiraahdo agabka laga soo diray dibadaha inaan inta badan la soo gaarsiin dadka way dhacdaa Soomaali bay nahay way dhacdaa in la soo gaarsiin laakiin waxaan leeyahay ururkan maradu maanta isxilqaamay oo uu degmooyinkii gobolada Awdal iyo Sare u yeeray oo ururadii bulshada u yeeray oo uu qalabkiina soo hordhigay annaguna waxaan ka barqaati ka annaa daryeel waxaan u sheegaynaa oo aan leenahay agabkii aad soo dirteen ururkaasi si sharaf iyo qadarin mudan ayuu isla u soo gaadhsiiyey dadweynihii loogu talagalay taana ururka daryeel baan u sheegaynaa waxaan leeyahay intii ka soo howlgashay iyo intii arrinka soo abaabulshayba waxaan leenahay wallaahi shukri cala alwaajib laakiin waanu idin mahadnaqanaa dadkiina aad wax u qabateen dadweynihiina aad wax u qabateen waxbaad soo tarteen waanu idinka mahadnaqanaa laakiin waxaan idinku darayaa qolada ururka muxuu sawda miyaa leeyahay sawad ururka sawad waxaan leeyahay dee naguma idin darin annaguna ogaada madax dhaqmeedyada salaadiintu xafiis bay leedahay aqal baanu samaysanay naguma idin soo darin kombyuutarna waan u baahana ku darsada qorshaha ku darsada ku xisaabtama waxaa laga yaabaa hadda qor inaydaan ogeyn laakiin ku xisaabtanayna wixii ka dambeeya waa in xafiiskayagaa laga soo bilaabo waqti dambaynu ku jirnaa waqti dambaynu joognaa intaasaan kusoo gabagabaynayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gobolka Awdal oo markaa uu hadli doono sheekh xaamud nadiif falyatafadal mashkuura dhammaantiin heer gobol heer degmo xafladan inta u soo xaadirtay salaanta islaamka nabi salaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal waxaan kaloo u mahadnaqayaa oon halkani anigoo ku hadlaya afka isuduwayaasha goobtani jooga waxaan u mahadnaqayaa ururka daryeel dibadda iska ururiyey dadkooga u dadaalay dadkooga inay wax taraan u soo gaarsiiyey agabka maanta horteeda ka muuqda waxaan leeyahay اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحويا ولا ليال horta maxay ahayd in jirtay abaari iyo waxyaalo caynkaas laakiin maanta waa barwaaqo qaybidiya uu maadsan yahay iyo ka kale u soo dirayba markaa daryeel markaa waxa weeye halka tallaabada hore uga sii wada farsamooyin badanna waynu hor yaaliinoo farsamadeenii hore oo aan ka guurayba oo dhaqan wanaagsan oo halkan hor yaalla miska yaalla kuwaasina waa kuwa yani indhaha soo jiidanaya markaa sidaa darteed waad mahadsantihiin melaguna hogaamayay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaynu ku soo dhawanaynaa xaawo rooble oo ka tirsan ururka sawad ilaahay baan mahadlay suuqeena madasha maanta oo ku qaybinayno qalabkan awalan dadka ka soo qayb galay madashan oo ugu horeeyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal iyo diiwaanada maxay gudoomiye ku-xigeenka isagana degmada maayarka ku-xigeenka salaadiinta qokaasha bulshooyinka dhalinyarada dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waqti kulul baynu ku jirnaa horta waxaad nagaga raalli ahaataan qadar eebaa xilligan ina soo gaadhsiiyey qadarka eebee ay nagu dhacay ay nagaga raalli ahaada sababta ay tahay inaynu xilliganba ku kala yaacno ayay ahayd oo hawsheena fushano waad ogtihiin oo degeeri bayna heshay ilaahay isagana naxariistii jannaha ka waraabiyo innaguna waa dariiqan ku wada jirnay dhammaanteen ilaahay maalintan meeqaamkiisa gaadno maxay nooga daba naxariisto taasi waa intaasoo raaligelinta waxaan ka bixinayaa waqtiga inagu daahay anigoo u soo noqonaya nuxurka aan isku soo taagay
waxa ay tahay maanta qalabkan aan halkan ku ururka yaga sawad qalabkan halkan ku qaybinayna waxaana soo gaarsiiyay ururka daryeel ee degan Switzerland dhalinyaro aad u firfircoon maskaxdooda bisishay caafimaad qabto danaynaya dadnimada iyo dalnimadu waxay tahay ayaana soo gaarsiiyay annaguna waxaanu nahay urur daneeya dadnimada dalnimada maxay wadajirka iyo wanaagba wuxuu yahay ayaanu nahay sababtoo ay tahay ururka sawad wuxuu u taagan yahay daryeelka hooyada iyo dhallaanka waxaanu qabanaa oo ururka sawad uu hawlgalkiisu yahay non formal educationka oo ah jahli ka saarka dadka aan awoodda u helin waxbarashada waxaanu qabanaa cunto karinta oo ah iyaduna waxa maxay qofka shaqo weyn oo kala awoodi kara oo kaga shaqeysanayo meelaha qaarkood sida hudheelada caalamiga oo kale ama meelaha maxaan ku dhahday cafeteriyaasha oo kaga shaqeysto waxaanu barnaa xinaha buufintiisa waxaanu barnaa farshaxanka dhaqanka iyo hidaha waxaanu barnaa quraanka kariimka oo ah tiirka islaamka intaasoo maadadood ayaanu barnaa walina maanta horteed kamaanaan soo bandhigin hadday media tahay iyo haddii ay tahay maxaan ku dhahday TV-gan caalamiga ah kamaanaan soo bandhigin sababta ay tahay kolkaad horta wax soo qabatay waxaagu midho dhalo ayaa la tusaa dadka kaliya waxaana og wasaaradda maxaan ku dhahday waxbarashada oo iyadu intayna soo kormeereen wax qabadka iyaga arkay halkaa waxaa ku jira dad 230 qof ah oo maadada kala duwan dhigta ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa ilaahay inuu nagu garab galo intaa iyo in ka badanna aan wax u qabanno waxaanan u guntanay gobolka iyaga saan jahliga uga saarnahay maantana inagada soo diray ama jahliyada noo soo dirtay qalabkaana way sii gacan qabatay waayo gobolada Salal iyo Awdal ma yaalaan xafiisyadooda kombiyuutarro wax loogu qabtaa bulshada diinta waqaafto kale ma yaalaan kombiyuutarro meelo gobolkan maxay Awdal kamid ah oo degmada gudaheeda ayaanay oolin qalabka xafiisyada marka maanta waxtar weyn bay u tahay de adduunka la jaan qaada bay yiraahdeen maadaama qalabka ay soo gaarsiiyeen adduunka la jaan qaada annaka wayna soo gaarsiiyeen annakuna waan idin gaarsiinay sidaan idin gaarsiinay idinkuna u gaarsiiya waxtarkeeda bulshada intaas way iga dardaaran waxaanan idinku mahadnaqayaa waqtigiina qaaliga ee noo soo hurteen dhammaantiinba inta wax qalabka loo qaybinayo iyo inta kale ee ka soo qayb gashaba waqtigiina qaaligaan idinku mahadnaqaana hadalkayga soo koobaya aad iyo aad baad u mahadsantahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu arrintan waxaan kaloo u mahadnaqaynaa daryeel ee Switzerland aad baan ugu faraxsanahay runtii oo wuxuu hawshani ka qayb qaadan doontaa inaan hawlaha oo aanu malaynayn hawlaha ugu badan aan hayno ee dhalinyarada inay noo fududeeyaan hawlahan qaban doono marka mahad celin u hadalkaygu ahaan doonaya hadii la yiraahdo waan naasintii dhamaantii wassalaamu calaykum gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee Seko Axmed Xuseen Daahir بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii maanta madasha meesha waxa yaala waa shay aad loogu farxo waa waxyaabo aad loogu farxo oo waxyaabo u baahan in maanta laga dhiso community-ga oo civil society-ku ay kooda kooban yihiin hadday xagga dawladda tahay iyo hadday tahay xagga organization-ada in yar haddaan ku hadlo anugu afka ururka Seko iyo dhammaan ururada kale bulshada ee maanta ka shaqeeya degmada Boorama waxaa jirta hay'ado inta gobolka yimaadaan ururada asasma ku sameeya asasmanka ku sameeyaan iyagu waxay u beerinayaan ma jirto laakiin waxay kaliya ogaanayaan capacity-googa iyo material-kooga waxa ay haystaan marka ogaadaana wax project loo ogolaanayo ama wax bulshadiisu u qabanayay ma jirto maanta waxa leeyahay ururka Sawad ruuxantii aad baad u mahadsantiin sidaas ku xil qaanteen ee aad u implement gareynaysiin u fulinaysiina waxaana mudantiisa wadahaan waxay tiin dal lagu daydo urur lagu daydo gaar ahaanteena ururadayadoo dhani waxaan aad ugu dayan doonaa ururka Sawad sida ay wax u implement gareynayaan markaan horta assalaamu calaykum bacda taxiya waxaan salaan kal iyo laaba u dirayaa ururkan soo agaasimay xafladan iyada ah ee ay ku guddoonsiinayaan agabka kala duwan ee xafiisyada ururo kala duwan iyo
meeqaamyada dawladda kala duwan waxaan leeyahay hambalyo waa meeqaamad gaadheen idinna hambalyaan idin leeyahay anoo horta ka socda naadiga aayareeb akhriskii qoraalka ee aayareeb ahna afhayeenkooda waxaan ku soorayaa maanse gaaban oon soo ururiyey cadceedoo kulul aawadeed oo aniga laftirkayga ay sheeqinaysa idinna kolley idin gubaysahay waxaa la yidhaahaa maansada magaceeda gacmo duuban dan midaysan leh waxayna ku bilaabmaysaa sida tan doorkaygii maanse dharaarahan ka daahaya aragti durugsan maskaxdii hatiya laab dugsiisa intaba waan daboolo waayahan ka dul meere maantaan duur xuli murtideeda idin deeqsiina dadow dood anigoon furayn ereye kugu sii didinayn wanaagga anigoon dilan xumaanna soo durkinayn dareen baan xulayaa misena horumar door bidayaaye duluc iyo ujeedda haddaan maanta daaha ka rogo oon daalacda idhaahu maagga jeebkeen dedan waa waxaan dabnaha furay bal idinna ila dayan duruufahan maanta jiree dabool la saara tabaaya deeq wax bixin iyo dadaal dheeriyey rabaane midigtu deris haddaan ilaahay bidix sacab ma doontee rayidka iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha bahda saxaafadda waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan waxaan mahad dheeraada u soo jeedinayaa ururka daryeel ee isku hawlay soo ururinta agabkan maanta aan u fadhino xafladdan lagu guddoonsiinayo hay-adaha ama xafiisyada kala duwan ee gobollada awdal iyo salal iyo fulinta oo iyaduna ay fulinayso hay-adda ama ururka zawda oo sawad oo ay fulinayso ururka sawad oo si qurux badan oo qaabaysan oo cadaaladi ku dheehan tahay iskugu hawlay inay u qaybiso waxaan leeyahay labadaa ururba allah inaga abaalmariyo kulley wakhti baan joognaa ma haddaa mooye maanta wax kaloo inoo taallaana ma jirto ururada kalena waxaan leenahay waa in lagaga daydaa sida quruxda badan ee cadaaladdu ay ku dheehan tahay ee iskugu hawlan inay u qaybiyaan waxaa jirta agabyo badan oo magaca lagu soo qaado gobollada awdal iyo salal habase ahaatee aan soo gaadhin waxaan leenahay waxay indhuhu arkayaan bay ku hugooyaan baledhaa maanta waan arkaynaa ururkaasi siduu isugu hawlay kolley mahadnaqaa mooye wax kaloo inooga bannaanina ma jirto haatanna waxaan ku soo dhowaynayaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka cabdinuur assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka koowaad ilaahay baa mahadle mar labaad waxaan mahad u celinayaa salaadiinta maayarada taliyaha qaybta maayirka degmada boorama isku duwayaasha ururka ururka sawad ee xafladdan soo qabanqaabiyey waxaanan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka koowaad waxaan mahadda siinayaa ururka daryeel ee soo ururiyey qalabkan aad loogu baahan yahay dhammaan xafiisyada gobolkuna way u wada baahan yihiin qalabka welina waa qaybtii koowaad ee urur waddaniya oo ka tirsan gobolka awdal ama dibadda ha jooga ama gudaha keenay qalab intaa leeg ururka daryeel iyo ururka sawad waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaanad qabateen waxaanan hore loo qaban jirin waayo xafiiska aan fadhiya anigu ma laha kombyuutar kaan anigu fadhiya xitaa ee gobolka waa runta sheego wey kaan anigu fadhiya guddoomiye ku-xigeenka gobolka anoo ah ma lihi ku-xigeenka degmadu ma laha waxaad qaadeen tallaabo fiican waxaan leeyahay tallaabadaa fiican eed qaadeen allah inagu garab galo allah inagu siiyo ajar fara badan degmooyinku way ka liitaan
waxaad ku leedahay dalkaaga
الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام waxaan jeclahay inaan halkan uga mahadnaqno sida ka taamboorka laga dambeeyo ururkan daryeel oo ah urur Soomaaliyeed oo ka dhisan dalka Switzerland kaasi oo caawiya dhammaan dadka Soomaaliyeed ku nool meel kasta ay joogaan. marka ururkan wuxuu ugu soo deeqay deeq isugu jirta kombiyuutaro iyo printero kabadho iyo miisas iyo faylal iyo qalab kale oo fara badan gobolada على محمد أولا إلهي ما مهضة سوكين كنا مدشم عاديات وكل بدن عن حي قلب السن إلهي ما مهضة إسكالي وحنا مهضنا قينا إن ماضي قلب كان مسؤول قاسي أنا كنا صدق قلوب بدن أنا بوفى إليه هذا أنا بأحضر كصوت هذا أنا كشك إنه حقبت كي أو كصوت وأقول دسوي شري وحقبت كيسنا عاد بالعرية ما أنتم حنورنا وكلها توقصوا بيري قيبتا كمبيوترada ilaahay ka abaalmariyay qaybta kombiyuutarada oo anaga maxay furnay iyadoo ay ka faa'iideysan doonaan 30 arday oo kombiyuutarada baran doonta sawir wuxuu qabtaa ama uu soo qabtay ama uu qaban jiray qataaniga faahfaahiyo sawir wuxuu ka shaqeeyaa horumarinta hooyada iyo dhalaanka marka inuu leeyahay waa kuwa ka garoobay awoodda u waayay waxbarashada daday doonaan baha ahaadaan ilaa yar ilaa waaweyn ayaan maxay sawir u faa'iideeyaa kuwaasna waxa ay kala yihiin qayb la baro cunto karinta qayb la baro farshaxanka qayb la baro xinaha sida loo buufiyo qayb la baro maxaan ku dhahdaa quraanka kariimka ah iyo qayb la baro silbiska caadiga maadiga maxaan ku dhahdaa lagu dhigto iskuulada intaas ayuu ka kooban yahay maxay wax qabadka sawir maanta waxa ku soo biiray kombiyuutarada horta ilaahay noo suurta geliyay inaan dabarday ku yeelano maxaan ku dhahdaa hawsha inaan qabano iyo mahadda iskale mahadda labaadna waxa iskale inamada iyaguna na soo taakuleeyay ee maanta meeqaankii aan joognay ku ka sii sareeyay na gaarsiiyay ee noo soo diray qalabka imka soddonka arday ee halka u soo fadhiisatay ee indhihiina ku arkaysay run ahaantii aad iyo aad baan ugu tafaxaydanahay inaan wax qabano kolley deeqdan aad soo gaarsiisay noqon mayso tii ugu horeysay ama ugu dambeysay noqon mayso intan iyo ka badan baan idinka rajaynaynaa oo ah haddii ilaahay ilaa waxyaabaha aan dhulkan laga helaynin oo ah qaybta handcraftka wuxuu leeyahay irbadaha dhaadheer ee wax lagu tolo iyo duntoodii qaybta cookinka oo iyaduna qalabkii wax lagu karsanaya unu lahayn dhulkani kolley waxyaabo badan waad ku maqantihiin ilaahay haydila soo qabto annakuna sida aad noo soo gaarsiisan inaan inta kalena u gaarsiiyo kuwaan gacanta ku hayna ha noqoto iyo kuwaan u qaybinaba ha noqoto sidaad noo soo gaarsiisin inaan annaguna usii faafino ayaanu jecelahay aad iyo aadna waad mahadsantihiin boqolkiiba boqol waanaan idinku mahadnaqaynaa qofka damiirka leh ee dalkiisa iyo dadnimadiisu danqayso baa dadkooda soo xasuusta dhammaanba jahliyadda inta gobolka awdal u dhalatay maaha inay inta kale idinka
kala qayb gashayna gaal iyo islaam baad baan ugu mahadnaqaynaa waan salaam inta wasalaam calaykum waraxmatullaahi